السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغدي الكسود وهذا مركلية تحنيهنا عصبية شاملية شرف والشيكاء دي ادو حيصة بدن والشيكاء ادو مرغية تيرانيا بدن وتحنك هالليا رقنا كدكين هورية دمركودي قاب قرالك الشيكاء دون آد أيون حرية ميزان أولسيهي الفاض دي سنة آد أيو فضود دهي وحانا كدوغان افتهاني ما آد يادو حيل دير وانا تحنك كوبن طاوديشنا وحان لي لسعود وناكسن وحانا كبلاب ميساسيدان sharaf waxay ahayd inan aydeed oo lagu magacaabi jiray dhudi la noolayd waxay ahayd qofka aydeed ugu jeceshahay adduunka sharaf waxay u ahayd reerkooda curad hase yeeshee aydeed ayaa qaadatay markii gujir ahayd sharaf waxay ahayd inanta ugu maskaxda badan beeshooda waxay ahayd inan aad u fikir dheer oo sheed fog wax ka aragta waxay ahayd inan gaari ah oo aan naagna isbarbar dhigi karin intaa waxa u dheeraa inay ahayd farsamayaqaanad aad u xeel dheer dadku waxay aqalka aydeed ku tilmaami jireen buur la oran jiray hariya oo ahayd buurta ugu weyn uguna dheer deegaankooda aqalku haba weynaado oo haba qurux badnaadee waxa dheeraa inta cawsas kebedo iyo darmooyin dhammaystiran ee duuban nooc kasta oo shaqo ah hadday tahay reer rarid aqal dhisid furfurid neef qalis guri oodis cunto karin iyo xoolo aroorinba sharaf baa u heelanayd sharaf waxa ahayd gabadh yar laakiin gabdha waaweyn oo guryo iyo caruur leh ayaa u iman jiray iyagoo ka dalbanaya inay tusto nashqada ay guriga aydeed u sharaxday sharaf weyn nasisay aydeed abtiyadeed iyo awgeed waxaana suurtagal ahayd in sharaf la'aanteed ay reerka waxba u qabsoomi waayaan aad ayaa sharaf looga jeclaa loogana qadarin jiray xaafadda ay degan yihiin dumarada abtiyadeedna waxay ula dhaqmi jireen sida inantooda oo kale sharaf aad baa geyiga iyo gayaankaba looga ixtiraami jiray marka fagaaro la isugu yimaadana iyada ayay ka soo go'i jireen go'aanada ugu suubani waxay ahayd inan ixtiraam iyo naxariis badan oo waaweynkana kor u eegtaa yaryarkana hoos sharaf may ahayn inan maskax badan ama gaariya ama farsamayaqaanad oo keliya balse waxay ahayd inan quruxdeeduna ka hirgashay deegaanka oo dhan nin kasta wuxuu u soo dhukusi jiray si uu iyada u arko oo keliya kii arkaana wuxuu noqon jiray isagoo taahaya oo ku hadaaqaya qalbigaa layga wareemee duumo idinlayse dawadiisu waa sharaf qurux iyo qaayo ayuu rabbi u dhammeeyey intii qalanjo la ammaanayay adduunka wax sharaf lagu ammaano waa la garan waayey ragna wuu diiday inuu goray faras iyo deero barbar dhigo iyada rag wuxuu isugu tilmaami jiray tii quruxdii nebi yuusuf rabbi ugu deeqay ninna wuu ku dhici waayey inuu soo doono iyada maxaa yeelay wuxuu ogaa inuu meesha ku ceebeebi doono marka ay sharaf hadalladeeda xikmadda le ku wanjarto ee uu garan waayo waxay su'aalaheeda ka wado waxay rag badani u darrisi jireen inay habeen un la baxaan laakiin sharaf way ka badin waayeen nasiib darro sharaf aabbaheed wuxuu bixiyey iyadoo uurka ku jirta inanka la siiyeyna markay dhalatay buu laba jirsaday inanku waxa uu ka dhashay reer maalqabeen ah oo aad mooddo inay jannatulfirdowse ka soo rakaadeen sharaf way ka warhaysay dhacdadan laakiin may jeclayn inay ka hadasho waxayna rajayn jirtay oy rabbi weydiisan jirtay in iyaga iyo reer qowdhan ilaahay wax kala dhex dhigo reer qowdhan waa reerka sharaf inankooda ay u doonanayd oo sharafna aad u necbayd maxaa yeelay waxay u arkaysay reer fasahaaday oo kibir ku talis ah gugii ay 17 jirtay sharaf ayaa hooyadeed dhimatay 2 maalmood geeridii ka bacdi ayaa sharaf aabbaheed maxamed maroor oo ku magac dheeraa dacde soo heshay oo u soo dheelmaday gurigii sodohdii odaygii oo giirar leh ayaa u soo hoyday reerkii si qurux badan ayaa sodohdii iyo seediyadiiba u soo dhoweeyeen hase yeeshee taamuu mahadin wixii lagu macsuumayna cankuu dhigay isagoo aan reerkiisa sharaf le salaantii uga qaadin intuu shabeecay oo uu guska xoqday ayuu ku dhawaaqay wax reerkii ka fajiciyey odaygii afkiisa waxaa laga helay inuu u soo dheelmaday inuu inantiisa sharafka haysto reerkiina dhafoorada ayay wada qabsadeen fajac yaab iyo amakaagna way la jaawareereen sharaf iyada qalbi wareeg baa la degay xaaladdanna si ay u waajahdo way garan weyday dhudi waxaa u dhinayd inay tiraahdo ilaahayow dhulkayga dusi dhudi waxay istidhi haddii kii rag ahaa ilaahay sidaa u qadaray bal adigu xagga xuska ku dhaan dabadeedna waxay u sheegtay inay raaci karto hase yeeshee taasi sharaf way mari weyday waxayna ku madax adeegtay inay aabbaheed raacdo halkuu xaaji dacde abley iska soo jiiday nadarna ku galay inuu dooxi doono qof haddii ay raaci weydo
sharafna may jeclaysan inay sababto dhimasho, sidaa darteed aabaheed way raacday. Sharaf way is afgaran waayeen reer aabaheed, waxay ku dhex darsantay 10 ay walaalo yihiin oo iyada iska wada leeg, halka ka iyada ugu soo xiga uu ka yaraa 10 bilood. iyada iyo walaalheed ismay jeclaan, waxayna walaalaheed ku bilaabeen xin iyo xaasidnimo oo intay been mariya u geliyaan ay aabahood ku soo dhowsiin jireen. dacdee wuxuu had iyo jeer Sharaf ula diyaar ahaa inuu dhabi u qaado. ayaamihii dambena wuxuu bilaabay inuu habeenkii markuu soo hoydo uu 4 adinka uleeyo. wax kasta Sharaf way xamishay, laakiin waxay ka lidi weyday aabaheed oo had iyo goor ka hadlaya Sharaf iyo doonanaanteeda. kasii darane wuxuu u hadli jiray sidii in ay reer qowdhan iska leeyihiin iyada, wuxuuna ku hamiyi jiray xoolaha badan ee uu ka qaadan doono. Sharaf waxay aabaheed u sheegtay inuu fikirkiisa xun kala fogaado, haddii ay rabto inay guursatana iyadaa doonan ninka ay rabto. dacda intuu labada dhafoor qabsaday ayuu dhirbaaxo dhag iyo dhaban fujiyey. Sharaf intaa kumay aamusina waxay sii raacisay, haddii aad rabto inaad la xidhiidho reerkan aad la allakoodeed u miirbeeshay, hablahaaga aad soo korisay soo kolkolisay mid ahaan sii. xalqadeena koowaad ee sheekadu maanta inta ay noogu joogto, qaybteena labaad ayaynu kaga warrami doonaa odaga iyo wuxuu ku jawaabay wixii dhex maray. haatanna sidaa iyo nabadgelyo. si joogta ugu xidhnaato kanaalkeena Xogruug, fadlan subscribe si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. fadlan taabo jeleska